qaar ka mid ah bulshada magaalada Ceergaabo oo isugu jira xildhibaano waxgarad madax dhaqameed siyaasiyiin dhalinyaro iyo haldoorka magaalada Ceergaabo oo aragtidooda ka dhiibtay colaadda ka soo noqnoqotay degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyeen inaanay sidii la rabay wax uga qaban colaaddaasi oo muddo haatan 3 sano ka badan soo jiitamisay geesta kale waxay madax dhaqameedkan siyaasiyiintan xildhibaanadan iyo dhalinyarada magaalada Ceergaabo ay ku baaqeen inay ka tashadaan aayahooda isla markaasina iyagu wax ka qabtaan arintan colaadda ee soo noqnoqonaysa iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadaladoodii ka mid ahaa laakiin waxaan ka hadlayaa gobolka dawladda waa ka seexatay waana dayacday ma jiro waa ku fashilantay nabadgelyo dhalintii Ceelafweyn xukuumaddu waa ku fashilantay gobolka inay si wanaagsan sida gobolada kale ula dhaqantona waa ku fashilantay wax alla wax ka jira oo xukuumadda oo halkan aan anigu arkaynaa ma jiro ciidamada halka ciidan diraysta waa arkaa laakiin wax kale ma jiro meel laga wada hadlayana ma arag haddii aan si dhaqso ah dawladdu halkan ugu soo gurman dadku dee looxaan maayo waa tashanayaa bay ilatay gobolku isku tashanayaa afartiisa beelood buu isku tashanaya wax kale celiyaba haddaan dee la soo dhexdhigin laakiinse waxa dhaliil u soo jeedinayna ama hagrasho inaan xukuumaddu hadday bilays tahay iyo hadday military tahay ay hamrasho ku jirtaa oo loo hamranayaa dadka wada nabadgelyo darrada ama amni darrada way ay u hamranayso sidaana haddii ay ku sii jirto amnigu ku aslaaxi maayo waayo waxaanu ku jirnaa inaanu maanta xaaladihii 80aadkiiba uu xaalku nala gaadho reer Sanaagna waxaan ugu baaqaynaa war haddii la tashan weydeen taladii xukuumaddana aragtaan war ina tashataan baa leedin baahayo amni darradaasi deedan inooguma jirto xukuumaddu wax allaale waxay ka qabatay ma jirto colaadda Ceelafweyn totally haba yaraatee wax allaale waxay ka qabatay mid ay huriso mooyaane waxba kama qaban anu qabaa waxa weeye maanta xaaladii meel ciriiriyoon bay marayaan in la daawadana looma baahna idinka iyo waxa la mid ah inay wax ka qabataan bay u baahan yihiin shacbiga Sanaagna waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa waxaanu leenahay haddayna gobolkeena sida goboladu u tashanayn aan ka dayno waxyaalo khasaare badan baa dhacay wixii dhacay Ilaahay baa qoray maanta talaynu baahanay reer Sanaag oo aynu wada tashano in arrinta mowqif laga wada yeesho leeyahay aad iyo aad gobolka Sanaag inay uga soo jeestaan dhamaantood nabad Ceelafweyn iyo midnimada meel uga soo wada jeestaan waxaan arki jirnay xukuumad markay wax dhacaan gacan bira ama siyaasad ama wasiiro ama wax walba wada yimaadaan ilaa arrinka la xaliyana aan ka tagin laakiin xukuumaddan Hargeysa uma soo dhaafin bade waxay ku darsataa iska bad gobolka Sanaag waxaan leeyahay reer Sanaag iyagu aayahooda iyo mustaqbalkooda ha ka tashteen waayo reer Sanaag waa dad isdhalay waa dad isku mid ah gobol Sanaagna waxa lagu xaman jiray dad isku mid inay ahaan jireen waxaan leeyahay reer Sanaag inay iska daayaan qabyaaladda iyo kala qaybinta iyagu aayahooda iyo mustaqbalkooda goboladii kale aynu ka hadnay aynu ka tashano xukuumadda markaan ka soo qaado horta markii hore mise ayaantii dhaweyd xukuumaddu dib ay uga dhacday hawshalka ka dhacaysay markii hore laakiin geed dheer iyo geed gaaban buu uga kortay sidii nabadgelyadaas ay u ansixi lahayd mid kalena waan leeyahay Soomaaliland intay Soomaaliya maagayso aan inoo dhaweyn bal Soomaaliland wax iska reebtay iyadu Soomaaliland bal adigu wax iska reeb reer Sanaag waxaan ugu baaqayaa inay isku tashadaan oo mid noqdaan oo nabadooda iyo gobolkooda horumarkooda ay ka tashadaan shacabka reer Sanaag waxa la gudboon inay midnimadoodii iyo walaalnimadoodii ilaashadaan nabadoodana ay u tashadaan waxa iyagu samaystaan baa u ah wax wala xukuumad wala cid kale Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo